السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن السلام ميلا جوجتانبا نبت قليو إيا نحريس كوركينا آد بإذن سلام يا صومالي محمد. قصدي حاج تمر وهي أدر تمر حاج تمر بو إسكا قدن جيرانين مسكينة أو تمرتيس إسكا إيبسدوها marka waxa dhacday dad baa ku yiraahdeen maalinka soorta odaygaan wuxuu dhahaa timirtaydu ma baarto timirta waa la iga gataa timirtayda marka waa inaynu sharabno waa inay imtixaano niraahno tuulada heblaaye la dhaho timirtaadu ma baartay maalin kasta waxa tiraahdaa timirtaydu ma baartay bari ka soo iibi marka tuulada u tilmaamayaan waa tuulada timirtu ka baxdo waxa isleeyahay markuu geeyo halala yaabo hala dhaw war tuuladan cid timir kama gadatee reer walba geedaha u beerane niyow timirtaada la noqo dib wuxuu yiri waaya bari magaalada sangeynaya waa soo gadaya insha Allah waaya marka magaalada intuu isu socday waxa dhacday magaaladii waxa ka dhacday qissa ka dhacday gabadhii boqorku dhalay baa waxa ka lumay silis dahaba ama katiina dahaba marka gabadhii waxay samaysay aabaheeda wuxuu intuu isugu yeeray tuulada dadka joogay hadii gabadhayda siliskeeda ninkii keena gabadhaydan siinaya marka nimankii oo dhan laba bari bay ciid qodayeen walba xusay nasiibkaaga fiiri bilaa ilaahay adiga katiinka kugu aadi oo aad gabadhii guursataa tuuladii wuxuu tagay marka ninkan isagoo timirtiisa iska wato aan xog mooga abo tuuladii tagay waxa arkay ragaano ciid qoday markaas wuxuu ku yiri war maxaa ciid u qodaysaan markaas waxay ku dhaheen waa la kala qarsanaya marka nin walba hadii uu ninka kale u sheego gabar baa silis ka dhumay gabadha boqorka ninka helan waa la siiyay inuu ciid qodo marka waxay ku dhaheen adigu maxaa ahayd markaas yiri anigu xaaji timiraan ahay timir baan gaday war bal gaajaan haysa inaan timirta geedaha ka soo gurna kama bagaarnay kan ka gadanay timirtii baa laga iibsaday timirtii markii laga iibsaday baa boqorkii baa wuxuu maqlaa nin baa timir gadaya markaas u yeera wuxuu warnayo meeshan timir lagu ma gaday maxaa ahay wuxuu yiri anigu meeshaasan ka imido maartay timirtayda iska gadan markaas yiri boqorkii nin nasiib badan baa tahay meeshan timir lagama gado reer walba geedahaas u baxa markaas yiri aniga wuxuu yiri waa hooyadayba waalidkayba ii duceeyo hooyadayba ii duceysay waxay iigu duceysay saddex arrimood haye midda koobaad waxay igu tiri beecaaga Allah barakeeyo beecaaga Allah ku barakeeyo oo aniga timirtaydu ma baarto waaba ii gadanta maalin kasta midda labaadna waxa weeye waxay igu tiri ilaahay gabar boqor dhalay ha ku siiyo gabar reer boqor ah ilaahay ha ku siiyo labo tii saddexaad buu intuu farax ciidisa u galay wuxuu yiri oo ciidisa u soo qaaday ciidaas oo dahaban Allah ku siiyo bay hooyada igu tiri ciidii uu soo qaaday ama caradii intuu gacanta soo daray uu saa u tusayay boqorka siliskii baa soo raacay farihiisu soo raacay marka siliskii baa soo booyaha siliskaana la helay gabadhii boqorka saasa lagu siiyay timirtiina waa u gadantay maxaan ku yiraahdaa beeciisana Allah u barakeey marka ducada waaridka la ogaado siiba hooyada ducadeeda la ogaado kal iyo laab bay kuugu ducaynaysaa xaq badan bay kugu leedahay marka halkaas qisadaas inoo ku dhamaatay insha Allah qisooyin kale way jiraan waqtiga Allah inoo barakeeyo isu duceeyeen Ilaahay waqtiga noo barakeeyo oo wax ku qabsano waxyaabo badan ma qaban karnaa hadii aan Ilaahay iska tala saarno waqtigan Ilaahay noo barakeeyo marka sidaa iyo nabadgeliyo nool kulantee ismaqal dambe xiiso leh. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.